qaybtii hore seminaarka noo daadiinayay oo ka hadlayay barnaamijka wacyigelinta ardayda waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka kala duwan ee midowga dugsiyada gobolka Banaadir iskuulada oo ay idinka qayb ka tihiin maadaas alla ka soo ayaga iska amaantaas ay shaqada adag la qabtay haddii aan iska baro magacay waa Maxamed Abdiqaadir Ibrahim waxaan ku magac dheer maaday madaxa tababarada ee midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxaan qayb ka ahay seminaarka maanta halkan ka socdo sidaad u soo ajiibteen oo ku mahadsantihiin shaqadan waxaan u haynaa waa bulshada waxaan ku shaqeynayna waxa waaye in la sameeyo wax la isbedelkaasna wuxuu ku imaan karaa maamulayaasha dugsiyada gobolka Banaadir ee maamul marka aad iyo aad u mahadsanyihiin dhammaan inta maamulayaasha soo ajiibtay ee ka soo qayb gashay barnaamijkan quruxda badan ee halkan ka socda waxaa insha Allah taala haddii Allah wadala ogolaado wejiga koowaad oo ahaa kaas wejiga labaadna haddaan qaldaneen sida gadaashadeeda ka muuqataba waxaa daadii doona Professor Cabdirasaaq oo sida oo barnaamijkiisa ama ciwaankiisa uu yahay halkan uu ku qoran yahay maamulada dugsiga ayuu noo qoran yahay halka Professor Sheekh noo qornay wacyigelinta ardayda intaas hool waxay hoos imaanayaan wacyigelinta ardayda macallimiinta shaqada iskuulka socotay deegaanka iyo waalidiinta wacyigelintooda dhammaan waxay hoos imaanayaan maamulka dugsiga hoos imaanaya sadaraadda marka midowga wuxuu gartay in laga shaqeeyo in la wacyi loo qabto seminar maamulayaasha kala duwan ee iskuulada gobolka Banaadir kuwa midowga ku jira kuwa aan midowga ku jira dhamaantood qayb ay ka yihiin in qayb ka aadaan barnaamijkan qayb ay ka aadaan dhammaan maamulayaasha midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxaa loo qabanayaa arrintan waxay tahay in sare loo qaado tayada maamulka iyo macallimiinta waan ognahay Kenya wax soo maamushaan rag ruuc cadaayaala ku jiro wax badan soo maamulay maamulku wax badan ka yaqaano ujeedada seminaarka loo qabanayo waxay tahay maadaama ay shaqadayna ay tahay in